sida ay sheegeen saraakiisha booliiska dalkaasi Mareykanka khabiir ku dhow inuu hindiso daawada caabuqa safmarka ee COVID-19 oo lagu dilay dalkaasi Mareykanka. Professorka la dilay magaciisa la yiraahdo Lee ayaa ahaa khabiir jaamacadda Pennsylvania u qaabilsan baaritaanka daawooyinka, waxaana la sheegay in meedkiisa laga helay gurigiisa oo ku yaala Ross Township oo dhacda waqooyiga magaaladaasi Pennsylvania ee dalkaasi Mareykanka. Jaamacadda Pennsylvania oo ayaa sheegtay Professor Lee inuu asalahaneed ka soo jeeday dalkaasi Shiinaha. Uu sheegay inuu ahaa khabiir cilmi baaris dheer u leh waxyaabaha sayniska. Bayaankan ay soo saartay jaamacadda lagu yiri waxa uu ku dhawaa inuu helo daawada faafitaanka caabuqa COVID-19, waxaana aanu ku dadaali doonaa inaanu dhammaystirno dadaalkii Professor Lee. Waxay ciidamada booliisku sheegeen in ninkan dilka geystay iyo professorku ay isu lahaayeen aqoon dheeraad ah, balse waa mid aan la hubin. Waa Xamsad Bare, telefishinka Star.